waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah, waxa uu ahaa mid xooggiisa maasha, waxa uu ahaa mid agoon ah haddana rajaya, waxa uu ahaa wiil isku filan balse muusan haysan wax ehel iyo qaraaba. Daawadaha qiimiga badan oo daawo muuqaalkan isagoo dhammaystiran adigoo mahadsan. runtii waa qiso cajiiba. inankan waxa uu ahaa wiil daacad ah balse waxa uu shaqayn jiray gabadha, waxa uuna ay siin jirtay xogaa lacaga oo isaga iyo rinjigii aan kaafinayn. balse maalmaha ka mid ah ayaa waxaa soo galay magaalada boqor. waxaa u sheegtay gabadhii u shaqaynaysay, waxa ay ku tiri, anigu waxaan kuu sheegayaa in uu jiro nin boqor ah kaasoo doonaya in loo rinjeeyo doonta. balse gabadhii mayna waxaa dhan ogeysiin oo waayo maalinkaas sidaas ayuu ku gaajooday xaafadiina ku tegay. sababtoo ah maalin walba uu shaqayn jiray inantaasi waxa uu ka qaadan jiray waxoogaa lacaga oo calooshiisa iyo intiisaba isku kaafin jiray. balse waxay ku tiri, anigu lacag ma hayo. maalinkii kale ayuu u soo noqday, sidii oo kale waa uu yar shaqeeyey isagoo welibana ka shaqaynaya qaybaha guriga banaankiisa darbiyada. kadib waxa ay siisay waxoogaa lacaga oo isaga iyo cuntadii aanan noqonayn. kadib boqor ayaa magaalada soo galay. boqorkii waxa uu haystay xilligaasi 2 carruur ah iyo 1 xaas ah. waxa uuna ahaa nin aad iyo aad maalqabeen ah, taajir ah oo wax walba isku darsaday. balse muusan ogeyn inanku oo muuna garanaynin. balse waxaa dhacday inuu boqorkii u yimaado magaalada dalxiis. waxa uu sheegay inan kaloo ay saaxiibo yihiin ayaa ku yiri, waxaa soo galay magaalada boqor, waxa uu rabaa in loo shaqeeyo kadibna loo rinjiyeeyo doontiisa. waxa uu ku yiri, saaxiib ma diidayo inaan shaqo helo, balse waa ra'yi fiican haddii aad aniga ii geynaysid isaga oo aan anigu u soo rinjiyeynayo kadibna lacag yaro quman aan ka soo qaadanayo. runtii waa fikir wanaagsan ayuu ku celiyay. haddana waxa uu ku yiri, waan ogolahay haddii aad aniga i raacinaysid oo ii geynaysid boqorka oon anigu u soo shaqaynayo ayuu ku yidhi. runtii wuxuu yidhi, haa waan ogolahay, aniguba waana ku raacayaa, waana ku soo tusayaa inaan boqorka kuu geeyo. kadib boqorkii ayuu u tagay, waxa uu rinjiyeeyey doontii, balse doonta waxa ay ka duleeshay meel muusan ogeyn. boqorku waxa uu ku celiyey, saaxiib macaane, berri aroorta kalahaada insha allah labadina ayaa israaci doonaa. balse waxa uu ku yidhi, shaqadaada iyo daacadnimadaadu ha isku xidhnaato oo uu yar waaniyey. kadib waa ay israaceen. markay israaceen kadib waxaa loo tagay boqorkii ayaa u yeedhay. waxa uu ku yidhi, magacaa? kolkaasuu ku yidhi, magacaygu waa cali. waxa uu ku celiyay haddana, waa maxay shaqadaadu? waxa uu ku yidhi, waxaan rinjiyeeyaa guriyada darbiyada, waxaan ahay adiga shaqaale rinjiyeeya meelaha la rinjiyeeyo oo dhan. waxa uu ku yidhi, hadday sidaa tahay waa si fiican, balse aniga waxaan rabaa inaad ii nashqadayso mise aad ii qurxiso doonteeda taalla meesha yare xeebta agteeda. waxa uu ku yidhi, waan ogolahay, balse waxa uu ku yidhi boqorkii, imse lacageed ku rinjiyeysa? waxa uu ku yidhi, intaad adigu ii garato unbaan ku rinjiyeyn doonaa haddii ay tahay. kolkaasuu ku celiyey, haye nin fiican ayaad u eg tahay, waan israacaynaa, waana ku tusayaa meeshaad rinjiyeynaysid. kolkaasuu ku yidhi, haye balse maanta maaha ee berri isku soo diyaari ayuu ku celiyey. berri oo kale ayuu yimaaday xilligii isagoo wata qalabkiisii oo dhammaystiran. kadib waa israaceen. waxa uu tusay doontii uu u baahnaa, waa uuna fiiriyey. waxa uu arkay qayb markuu mariyay rinjigii ayuu arkay meel inay ka duleesho. waxa uu soo qabtay looxii masaabiirtii, waa uu hagaajiyey. kadib meeshii markuu kabay uu duleelkii uu ka hagaajiyey ayuu rinjigii mariyey, waa uuna qurxiyey. muusan sheegin inuu duleel hagaajiyey, balse waxa uu sheegay inuu doontii dhammaystiray uu qurxiyey sidii uu rabayna uu uga dhigay.
kadib doontii ayuu u yeedhay. wuxuu ku yidhi waatana fiiri sidaan kaaga dhigay. kadib markuu qurxiyey ayuu siiyey lacagtii yarayd. waxa uu yeedhay labadiisii caruur iyo welibana xaaskiisii. waxa uu ku yidhi orday doonta ku dalxiistaga badda korkeeda amase badda korkeeda soo daawada ayuu ku yidhi. hayaa ay dhaheen waa israaceen. markaa israaceen kadib waxa uu yimaaday ninkii doonta sameeyey. waxa uu ku yidhi doonta meel ayay ka duleeshay, show caruurtaadii iyo xaaskaagiiba waa aad weyday. runtii aad bay u adag tahay nin boqor ah oon caruur haysan. isaga sharaf xumo ayay ku yarahayd, waayo dhaxal ahaan marka la dhaho boqor walba waxbuu ka tegi jiray wiil ama gabadh, balse wiil ayay jeclaan jireen. hase ahaatee boqorkii markay u timid gabadhii ayaan ka wadaa doonta hagaajin jirtay nadaafad ahayd ayaa ku tiri doonta meel ayay ka duleeshay, soomaana kuu sheegin anigu in ay doonta meesha ka duleeshay. waa uu yaabay. waxuu ku yidhi maxaad ku hadlaysaa? waxuu ku celiyay haddana doonta meel ayay ka duleeshay oo anigu ma hagaajin ee inawada soo aragnee xaaskaagii caruurtaadii waa la waayey. kadib boqorkii waa uu naxay. waxa uu yidhi caruurtaydii iyo welibana xaaskaygii ma halkaas ayaan ku waayey. wuu ooyey oo wuu fadhiistay. waa uu jilba dhigtay. waa uu dhawaaqay. markuu xoogaa dhawaaqo cidna inuu soo socon waa uu yaabay boqorkii. in badan markuu ooyey ay sasabtay gabadhii doonta nadiifin jirtay ay dhawaaqdo cidna ay u soo jooqi weydo. balse ma la ogo inuu hagaajiyey inankii rinjeela ahaa meeshii ay ka duleeshay doontu, waayo cidna maba ogeyn. isagana cidna uma sheegin. boqorkii waa uu cabaaday. in badan markuu ooyaba waxa uu arkay meel dheer ay ka soo socdaan doontii ay saaraayeen xaaskiisii iyo caruurtiisiiba. kadib waa yaabeen. waxay ku dhaheen sidee bay macquul kol tahay in doonta ay meel ka duleeshay haddana si nabad aad ku tagteen, si nabad aad ku soo noqoteen. waayo waxaa la ogyahay doonta meel markay ka duleesho biyaha hadday soo galaan inay quusayso ay gudaha galayso. waa uu farxay boqorkii markuu arkay xaaskiisii iyo weliba caruurtiisii. gabadhii nadaafin jirtay qaybta nadaafadda u saarnayd doonta ayaa la weydiiyey. waxaa lagu yiri sidee macquul galu tahay in doonta ay mar labaad iyadoo caafimaad qabta la arko. kadib boqorkii ayaa fikiray. waxa uu yidhi aniga maaha ee waa ninkii rinjeeyaha ahaa ee doonta rinjeyn jiray ayaa hagaajiyey doonta. kadib markaasuu u yeedhay. waxa uu ku yidhi waad mahadsan tahay, maanta adiga dartaa ayay u badbaadeen caruurtaydii iyo weliba xaaskaygii. aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa. waxaana kuugu abaalgudayaa lacag intaan anigu hayo. waxa uu ku abaalguday lacagaadu qaaliya. waxa uuna siiyey guri qasrigiisa ku yaala oo aad u weyn. waxa uu ku yiri qasrigan qayb ka mid adiga ka talin doona, waxaana tahay maalqabeennada xaafadan qaybaha ugu waaweyn kuwooda xukuma. wiilkii waa hal maalin keliyata ayuu waxa uu farxay si aaninaba loo farxin. waxa uu mahadceliyey ilaahay. balse waxaan ku dhihi lahaa qof walba ma ogin waxa maanta ka horeeya ee ogow waxa maanta kugu dhacaya. taasina waa taladayda. waad mahadsan tahay walaalayaal.